waxaa munaasabadan soo qabanqaabiyey maamulka iskuulka waxaana ay uga gon lahaayeen in abaalmarino lagu guddoonsiiyo ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka iskuulka imaamu shaafici ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 waxaana munaasabadan lagu qabtay xarumaha uu ka kooban yahay iskuulka oo ah dugsiyada hoose iyo dhexe waxaa munaasabada ka qayb galay maamulka iskuulka macallimiin waalidiin culimaa udiin mu'asasada minhaaj iyo marti sharaf kale waxa intay munaasabada socotay lagula dardaarmay ardayda wax ka bartay iskuulka in dadaalkooda ay sii wadaan cabdifataax xasan iyo daa'uud oo ka mid ah maamulayaasha iskuulka ayaa ka warbixiyay munaasabada ujeedkeedu uu yahay in lagu sharfo laguna dhiirigeliyo ardayda dhibcaha sare ka heshay imtixaanka ayaa sidoo kale waxaa deeq waxbarasho lagu guddoonsiiyaa ardayga u sareeya sanadkan waxaa waxbarasho lacag la'aan ku guuleystay Sihaam Xuseen Maxamed sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaynaa ardayda waalidka iska xil saaray xafladda tan inay qabsoonto runtii haddii maamulka iyo macallimiinta keliya ay arrintan u istaagi lahaayeen quruxda tan iyo diyaargarowga intaa la eg lama helen qaar ka mid ah ardayda ayaa kelmado kala duwan madasha ka soo jeediyay دوما سليمان الجمسول الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم المريد الليل والنهار وهذه المياه والبر والبحار تجدد الحياة جميعها تشير من خير الكثير waalidiinta ardaydoodu ay wax ka barato iskuulka imaamu shaafici ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka imaamu shaafici ma aha maaragtay iskuul maanta uu bilowday ma aha waa iskuul caam ah oo laga yaqaan maanta hadii gobolada Puntland xafladda qaayaha iyo qiimaha badan lagu siin hayo aad iyo aad baan soo dhaweynhayaa waan salaamayaa horumar baaxad lana wuu leeyahay insha Allah taala yaasiin maxamuud oo ku hadlayay guddiga waalidiinta iyo sheekh maxamed suldaan oo ku hadlayay afka mu'asasada alminhaaj ayaa la dardaarmay ardayda iskuulka wax ka barta hogaankii bari dalkan iyo ummadan waa idinka macallimiinta idin joogto waa soconaysaa waa duqoobaysaa madaxdu waa duqoobaysaa waa tagaysaa marka haddiinan maanta dadaalin oo idin ku talagelinin ciyaar iyo laalaab iyo meelaha lagu laalaabto waxa weyn ma qabsanaysaan cadoorkiina arday waxa tihiin imaam shaafici ardayda iyo iskuulka imaam shaafici baa tihiin akhlaaqdiina iyo wanaagiina iyo kulli waa in wadada xataa markaa maraysan in ka dareemo oo la yiraahdo ardaydaas akhyaarta ah ardayda fiican oo ardaydii iskuulka imaam shaafici ka soo baxay ku-xigeenka maamulaha guud ahna maamulaha dugsiga sare ee imaam shaafici farxaan cabdullaahi warsame ayaa ka sheekeeyay horumarka iskuulka uu ku talaabsanayo iyo taariikhda iskuulka xilliga iskuulka la aasaasay waagii dawladda Soomaaliya ay burburtay ayaa iskuulka imaam shaafici la aasaasay 1992 ilaa yawmina hada dadka ka baxay iskuulka ka takharujay hadda waxa weeye waxa ka marxaati kacaya bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeedba kumanaan arday inay ka qalin jabisay waxaa xusid mudan in Sihaam Xuseen Maxamed iyo Cabdiqani oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka iskuulka imaamu shaafici la siiyay waxbarasho lacag la'aan waxaa sidoo kale abaalmarino iyagana la guddoonsiiyay ardayda kaalmaha kala galay iyagoona ardaydaasi lagula dardaarmay in ay dadaalka sii wadaan si ay u helaan waxbarasho lacag la'aan xamse cabdirashiid SBC Bosaso